iyadoo dhowrkii sano ee la soo dhaafay shacabka Soomaaliyeed ee la daala dhacayeen xaalado nololeed oo isbiirsaday oo ka dhashay roobabkii guga iyo deerta aanan ka da'in gudaha Soomaaliya xilliyadii la filayay ayaa hadda waxa soo baxaya warar ay shaacisay saadaasha cimilada IGAD in dalal ay Soomaaliya ku jirto ka dhici doonto roob yari baahsan. Shirka ku soo gabagaboobay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo looga hadlayay 4 maalmood ee la soo dhaafay arrimaha isbeddelka cimilada oo ay ka qayb galeen khubaro kala duwan oo ka kala timid inta badan dalalka caalamka oo qayb ka ahayd dawladda Soomaaliya ayaa lagu gorfeeyay arrimaha isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalan karta. Shirka waxaa si gaar ah carabka loogu dhuftay in dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ay ka dhici doonto xaalad roob yaraan ah isla markaana loo baahan yahay in laga sii taxadaro xaaladaha nololeed ee ka dhalan kara roob yaraanta la saadaalinayo. bilaha Maarso, Abriil iyo May ee sanadkan 2023 ay saadaashu sheegtay in roobabka la filayo ay ka yaraan karaan 60%. taasi oo mas'uuliyiinta ka socota dawladda Soomaaliya ay sheegeen inay sii adkeyn karto abaaraha haatan ka jira inta badan gobolada dalka Soomaaliya. Shirkan ayaa imaanaya iyadoo abaarta ka jirta Soomaaliya ay gaartay heerkii ugu sareeyay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, iyadoo saameynta ugu daran ee abaarta ay ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ah oo qaarkood ay u dhintaan gaajo iyo haraad. Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka Hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.